maanta oo taariikhdu tahay 4 bishii July 2020 ayaa abaara 7:40 abtow gacanta hoos u dhigi ayaa gaari laga soo buuxsho walxaa qarxay wuxuu isku dayay inuu ku qarxo laanta dhexe ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha magaalada Muqdisho ciidanka booliiska Soomaaliyeed martaa waardiye ka hayay ayaa si feejigan uga hortagay gaarigii waxaa laga badbaadiyay inuusan gaarin goobta asagana wixii uu ku soo talagalay uusan gaarin dantuu lahaaba kala haadee gaarigii wuxuu ku qarxay sida aragtaan darbigaas mana gaarin goobtii laanta ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha oo isaga taargad u ahayd sababtaasna waxay ku timid ciidanka oo feejignaa isla markaana ka hortagay inuu wax khasaare ah gaarsiiyo waxaa falilahi alxamdu ilaahay ayaa ku mahadsan inaysan jirin soo gaaray iyo khasaare inta badan oo meesha ka dhashay kaliya waxa dhaawac soo gaaray 4 askari oo ciidanka booliiska Soomaaliyeed kana tirsan laanta isla markaana ka hortagay qaraxaas inuu gaaro goobtii loo waday 4 askari dhaawacyadoodu waa fudud yihiin hadda waxaa lagu dabiibayaa goobaha caafimaadka dibna waxaan ka ogaanay inuu askari kala jiray oo isla markii loo qaaday goobaha caafimaadka sidaas daraadeed 5 askari ayaa wax dhaawac ah ay ka soo gaareen ma jiraan wax khasaare inta ka badan khasaare naf iyo maal laho kale muusan geysan oo ka badan dhaawacaas cid kale oo ciidanka ahayn waxba kuma gaarin waxaa laga hortagay inuu gaaro goobtii uu socday ilaahay ayaa ku mahadsan wax su'aalo ma jiraan aad u mahadsantiin assalaamu calaykum warahmatullahi dib baan idinkaga soo ogeysiin doonaa wixii soo kordha baaris baa socota ayadoo faahfaahsan meesha uu ka yimid sidoo uu ahaa meeshaan ka siin doonaa laakiin waxaa idin sheegi karnaa gaarigaas wuxuu ahaa gaari saaruf ah oo madow ah aad u mahadsantiin